السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا جنال كدكتور حلنا كير عاد ugu barataan habeen kastiina ka dhageysataan casharada kala duwan ee barashada daawooyinka ee farmakolojiga ah. Caawa waxaan qaadanaynaa cutubka afraad maxaa noogu jiro drug class helminitis ku jiro daawada la dhaho albendazole tablet waxaa loo yaqaanaa albendazolum. daawadan waxay ku timaadaa kaniini iyo sharoobo. Indication of principal uses waxaa lagu daaweeyaa gooryaanada daawadan sida giardiasis, ascaris, tinea, parasite infection iyo tapeworm. How to track work sidee daawadan ku shaqeysaa. daawadan waxay faragelin kala duwan ku sameysaa iyo hab awood leh ku soo saaraysa dayactirnaanta sokorta kana sameysan awood. dosage-ka daawadan qiyaas ahaan la siin karo caruurta ka weyn 6 bilood iyo dadka ka waaweyn waxaa la siin karaa hal xabo oo kaniini ah 400 mg halkii mar. caruurta 6 bilood ka waaweyn miisaankooduna ka yar yahay 10 kg waxaa la siin karaa 200 mg halkii mar. Side effect dhibaatada ay keeni karto albendazole waxaa ka mid ah lambar 1 headache oo ah madax xanuun, lambar 2 abdominal pain oo ah calool xanuun, lambar 3 nausea oo ah labo, lambar 4 vomiting oo ah matag. Precaution taxadarka daawadan waa in la qaataa talooyinka dhakhtarka ku siinayo adigoo ka fikirayo waxtarka daawadan ay leedahay ama dhibaatada ay u geysan karto qofka xanuunsan ee daawadan u qaadanayo xanuunka. Drug interaction daawada aan lala qaadan karin. inta badan daawadan waxaa lala qaadan karin daawooyinka loo yaqaano lambar 1 amizazone, lambar 2 praziquantal, lambar 3 theophylline. Disease interaction ma jiro cudur lid ku ah daawadan albendazole. Cirrhosis cudurada beerka ku dhaco ayaa keeni karto isticmaalka aashitada sida cabitaanada. Contraindication lama siin karo hooyada uurka leh ee 3 bilood ugu horeysa uurkeeda, laakiin hooyada nuujinaysa cunuga way qaadan kartaa daawadan albendazole. ha siinin cunug ka yar 6 bilood. maasha Allah aad baad u mahadsantihiin. fadlan subscribe saar si muuqaalo ka duwan aad u hesho. share, like, comment insha Allah taala. wa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.